waxaan amraynaa markaa imika ciidamada dhammaan amniga ee Somaliland militariga iyo booliiska ciidanka ilaalada xeebaha inuu isaguna ka soo baxo dhinaca maydh oo kor u soo baxo ciidamada kalena ay dusha kaga dhaadhacaan aan la soconnaa dab baa ka qarxay gobolka Sanaag dhinaca buurta Daalo galbeedkeeda waqooyi dabku waxaynu ognahay inuu masiibooyinka qaran ka yahay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu dabka inaga soo damiyo meesha uu dabkaasi ka qarxay waa dhulkii bilicda iyo quruxda lahaa ee gobolka Sanaag ee Jamhuuriyadda Somaliland waana meel maritaankeedu uu aad iyo aad u adag yahay waa buuro iyo laag marka ugu horeysa waan ugu mahadnaqayaa waan ku ammaanayaa maamulka degmada meeyarka iyo gobolkaba kaalinta ay ka qaateen iyo guud ahaan dadweynaha reer Sanaag ciidamada qaranka ee booliiska iyo militarigaba qayb weyn bay ka qaateen gurmad fara badan bay ka galeen dabka xalinta intii lagu guuleystay saako haddana dib u sii qarxay arrinkan waan ka wada hadalnay meeyarka iyo barasaabka labadaba waxaan isla garanay markaa barnaamijka ay ku hawlgalayaan iyo waxyaalaha ay taakuleynta ka dhiganayaan iyo intaasna waanu isla xaqiijinay inay gobolkooda ka abaabushaan dowladda dhexena ay qaybteeda maxaanku dhahdaa ay kala qaadanayso waxaan amraynaa markaa imika ciidamada dhammaan amniga ee Somaliland militariga iyo booliiska ciidanka ilaalada xeebaha inuu isaguna ka soo baxo dhinaca maydh oo kor u soo baxo ciidamada kalena ay dusha kaga dhaadhacaan iyagoo kaashanaya populationka iyo maayarka iyo barasaabka gobolka iyo dadweynaha reer Sanaag marka waxaan leenahay aynu xoog isugu wada geyno waana meel aanu gaadiidku inoo tagaynin dabdamiskeenuna aanu gaaraynin ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu aad iyo aad inoogu gargaaro ilaahay inoogu gargaaro inuu dabkaasi naga damo ilaa habeen hore xalay maahay habeen hore dabkii hore ee isagu qarxay ilaa meel 200 mitir ka qarxay oo meelo beeraayo dhexdooda ahayd kaasi fiican baa loo xakameeyay kan dambaa qarxay haddana ilaa shalayna lagama fadhiisan gobolka in allaaliintii mas'uuliyiinta ahayd way isugu tagtay wasaaradihii runtii wasaarada fara badan baa halkaa isugu tagay wasaaradayaduna qayb libaax bay runtii aad iyo aad uga qaateen waxa jirtay ee kala ciidamadii oo kala duwan iyo dadweynihiiba runtii way ka qayb qaateen dabkaasi waa dad aad u ballaaran waana dab maanta meesha maaragtay dabdamis iyo booyado kale iyo aanay gaaraynin weeye waxa in lagu xakameeyo halkaas aanu kor u soo bixin in lagu dadaalo dadkana laga daadgureeyo tuulooyinkana la ilaaliyo tuulooyinka u dhow inaanu soo gaarin aad looga ilaaliyo ka dawlad ahaan anagu waanu ka qayb qaadanay waana ka qayb qaadanayna haddii la yiraahdo waana masiibada maanta ku soo korodhay aafada ku soo korodhay maanta dalka weeye ka wasaarad ahaan anagu waxana xuseynayay buu ahaa dhirtani iyo daaqan iyo xayawaankan ku dhex noolaa iyo ummadda kala deganiba si gaar ah noo sii taabanayeen manaanaanu ka harsan manaanu ka hadal yarayn intaana qaylada iyadu way socotay alxamdulillah waxaynu leenahay wax dad oo imika ku dhintay ma hayno ama ku dhaawacmay intaasba waa wax tan waynu ka soo kaban waana isugu wada tagaynaa dhamaanteen waxaan kaliyan halkan ka sheegayaa waxa weeye waqtigii waxa lagu jira xagaabaynu ku jiraa dabayl far badan baa dhacaysa iidi way soo socotaa way nagu soo fool leedahay buuraha ay maanta gacan libaax oo kale iyo buuraha lamida imika iyaduna deemka daalo dhinacyada kale ah ama wagar oo kale dadka tagaya looma ogola inay dab shitaan waa ka mamnuuc in dab lagu shido qofka tagaya wixiisa wuu sii qaadanaya isagaa sii qaadanaya halkaa laguma karin karo dadku kuma karsan karaan waliba wagar dadka tagaya kuma karsan karaan daalo kuma karsan karaan gacan libaaxna kuma karsan karaan haddii intaa in leeg ay ku kariyaan oo dab yar meesha kaga tagaan maanta waa arkaysaan khasaaraha halkaa maanta ka dhacay waa arkaysaan maanta waxaanu leenahay buuraha iyo dhulka la tegaya ee dooga leh ee weliba dee maanta ummadii waxa maanta iid weeye in la iidaa la doonayaa waxaynu doonaynaa inaanay dab lagu shidin dabka in la iska ilaaliyo waxa kale aan halkan ka sheegaya dadweynuhu markay waxaan oo kala arkaan
إن أي طلابة كقاعدة طلابة إن كقاعدة هدي قرن إنه إن ما كده سيد اللي شيء إن تجوبين إن لا مديهين ما كلا قرن كرين وحلاليه ما أنت دبكة كعيي ما هي نولي وحقيقة لكن ويصاب بحدونا واحد دبكة كعيي وحنين كحد حدرنا تدوينه إنه وقاعد إنه يقعد لكليه meel walba dadweynaha degan waa inay ku mitidaan in dab markay arkaan ama wax la mid oo aafa ay arkaan ama dhir la gooynayo la xasuuqayo ay arkaan inay tallaabo ka qaadaan iyaga loo baahiyo dawladda iyaga uga furo dhuudhuban iyaga uga dhow iyaga habeen iyo maalin meeshii ku nool marka waxaynu u baahanahay inaynu gacmaha isqabsano oo aynu aad uga taxadiro waliba kaymaha waqtigan imika ay taaganay kaymaha inaynu aad u ilaaliyo